qaran waliba la ictiraafsan yahay idinkoo ka socda ayaa xajaysaan sanadkan insha Allah taala dawladda Sacuudiga waan u mahad celinaynaa xajka si wanaagsan bay u maamuleen si wanaagsan bay u nidaamiyaan runtii aad iyo aad dalka iyo dadkana u soo duceeya qofka xaajiga ee maanta u diyaarsan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa u safro isaga in laga duceysto iyo wax la weydiiyaba qaabka loo gudanayo inuu qofku akhriyo haduu af Carabi garanayo kutubta ciidaasi ka badan tahay hadii aanu garanayna af Soomaali uu yahayna wax waa la helaya marka qofku inaanu isagu isdayicin culimadiina waa helaya qoraal waxoogaa intuu doonaba hal leekaade qoraalana wuu helaya qofka isaga ayuu baa la doonayaa inuu dadaalo amalka weyn ee uu soo qabanayana in aanu ka noqonin wax markaa waxa weeyaan ka xumaaday isaga oo aan waxba u marxin waqti ka baxay maal ka baxay ay ka baxday markaa waxa weeyaan juhdi iyo dadaal uu ka baxay haddana hadii wixiisi ay noqdaan wax aan markaa hagaagin culimada qaarkood oo aan soo xajin oo kutub qoray oo sacyiga bayna safa wal marwa 14 shawd ka dhigayna way jireen marka waxay ku tusaysaa cibaadada aad ku socotaan waxa ku gafa mararka qaarkood dad culimo ah baa ku gafa oo garan waaya sidii sawaabka ahaa qof aan diin baran hadalkiisa badaa marka waxaan uga jeedaa in aad ku dadaashaan maalin walba iyo ficil kasto aad samaynaysaan inaad culimadeedii la socota inaad weydiisaan oo aydan idinku isu fatwoon dadka caamada waxa ku badan laba is waraysanaya sidaa ma samaynaa mid baa oranaya waa iska caadiye sidaa aynu samayno marka iyagii baa isu fatwoonaya sababkuna waxa ay ahayd waxay ka shakiyaan inay inoogu dhow culimo ama aynu weydiinaabay ahayd marka qodobkaasaan si gaar ah u adkaynayaa waa cibaado baraktiis ah oo aan ahayn wax la maqlayo ficil la samaynayo ah marka talaabo kastaba intaadan qaadin culimada iyo cidda kuugu dhoway cilmi leh maxaan sameeyaa maanta dheh taasa insha Allah taala cibaadada ku ansaxaysa marka ujeedada aanu ka lahayn ugu horeysa waxa weeye juhuuda kala tagsanayd inaanu midayno qodobka labaad ee aanu ka leenahay barnaamijkan waxa weeye in wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wakiila diinta iyo arrimaheedaba uga wakiila dawladda Soomaaliland muwaadiniinta xajaysa inay dareensiiso inay wadankoodii waxa weeyaan iyo culimadoodii iyo wasaaradoodu ay ka warhayso ujeedada labaad ee waxa weeyaan ka leenahay maqsadkeena waa ka waxaanu samayn doonaa barnaamijkan kuma ekaan doonee faleedka koobaad oo maalinta jimcaha dhici doonana tawdiic baa la sii samayn doonaa in la sii sabootiyo oo diyaaradda la gaarsiiyo tagtaan inaad ummadiina u soo ducaysaan ducadiina way kacaysaa ummadeena u soo ducaysaan ummadda halkaa joogtana waxaad sidataan sharaftii iyo haybadii qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland halkaasna aad gaarsiisaan idinkoo haybadii dawladnimo haybadii reer Soomaaliland haybadii shacabkiina iyo ummadiina xambaarsan xukuumadahan waa uga mahadnaqaynaa wasaaradda diinta iyo waqaaftu sida sharafta leh ee hawsha u soo agaasintay uga hawlgashay safar nabadgelyo leh ilaa ay halka tagaysaan inay idinku diyaarisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku guulay amalka khayrka leh u socotaan haydi ka aqbalo dalka iyo dadkana u soo duceeya qofka xaajiga ee maanta u diyaarsan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa u safro isaga in laga duceysto iyo wax la weydiiyaba waxaanu aad iyo aad idin dardaaraynaa qaata culimada dardaarankeeda qaata iyo waxa weeye wacyigelinteeda iskuna duubnaada oo safar baa gelaysaan safarka isku duubnaada oo safarka aad iyo jeeraale yani iskarabsiga iyo dadku inay wada socdaan baa muhiim ah oo wuxuun bay isku beerin aad iyo aad way idinku hambalyeynaa ilaahayna waxaan idinka baryaynaa idinku guuleeyo xujayda halkan fadhiya de ducadiina waa la aqbalayaa dalka u soo duceeya oo waxa maanta xajaysaan idinku hadaa la ku run yahay
dee dad dawlad leh oo qaran waliba la ictiraafsan yahay idinkoo ka socda ayaa xajaysaan sanadkan insha allahu tacaala markaa dalka u soo duceeya tawjiihaadka culimmadu ay idin siinayaan na sidooda u qaata insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in xaj mabruur ah oo maqbuul ah inaad xaji doontaan dhibaato lama kulmi doontaan insha allahu tacaala dowladda sacuudiga waan u mahad celinaynaa xajka si wanaagsan bay u maamuleen si wanaagsan bay u nidaamiyaan runtii aad iyo aad ayay xil weyn ay isaga saaraan marka kelmaddayda waxaan ku soo koobayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala xajka ha idinka aqbalo intiina tegaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala nabadqab ha idinku geeyo nabadqabna ilaahay subxaanaه wa tacaala ha idinku soo celiyo inaad iscaawisaan isxaal ogaataan ayaan idinkula dardaarmaynaa